indhaha ku kala furan mahnaansan kartaa wakana xajada runtii ma malaynaysaa in la sameyn karo kaada asxaabta qaar ay isku dayaysaa u malaynaa sidaasna maalindii assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta kusoo dhawaada muuqaalkayga maanta muuqaaladii hore uu aad ugu duwan yahay waxaan rabaa inaan ka sameeyo reaction tiktok kale maahan waa tiktokeyga sidaa ogsoon tihiin baa farq u dhexeeya YouTube iyo TikTok waxay tahay TikTok muuqaalada waa muuqaalo gaagaaban halka YouTube muuqaaladu yahay muuqaal dheer marka waxa igu dhaliyay maanta reaction kaga sameeyo waxay tahay muuqaalo TikTok markaa soo qaadato mar qaar waxaa dhacayso in maadaama hal minute ay haystid wax badan ay ku sharxi karin dadka kala dad aad u kala duwan qaab kala duwan u qaadanaya muuqaalkaas marka waxaan ku qasbanaaday inaan muuqaal aan ka sameeyo oo TikTok YouTube ah aan reaction kaga sameynayo iyo dadka falceliskooda sidoo yahay marka muuqaalkeena kuwaad aan fiirinaynaa waxaad sameyn lahayd adigoo gaari kaxeynayo oo kaligaa weliba gaari saaran weliba highway saaran in hal jeer xaalad la yiraahdo diplopia ay kugu dhacdo taasoo ah inaad wax walba laba u aragtid dabcan aad ay ugu duwan tahay mar adigoo cafeteria joog adoo istaagayo oo kale bakeeriga aad wadato ama gacantaadna laba u aragtid caadi ahaan wax sababa waxay tahay labada indha hal il kamid ah ayaan sawirka fasiixda ah maskaxda u gudbinayn laakiin su'aasheena aan usoo laabano ah adigoo gaari kaxeynayo maxaa sameyn lahayd hal jeer haddii ay xaaladan ay ku qabsato waa sax dhakhtar indha ayaa u tagaysaa laakiin dhakhtarka indha inta ka hor xal degdeg ayaa u baahanta oo haddii aadan xalkaas helin ay dhici karto boom inaad shil la kulanto xalka degdega aad sameyn karto waxay tahay hal il inaad iska xirtid isla markiiba hal il iska xir halkaa markay muuqaalka marayso commentidan akhriyay hal commenti oo kamid ah aad iga qosliyay weliba xaq uu leeyahay commentigaas oo ahayd wuxuu yiri markaan shil galaayo in maadaama kugu soo dhacaysaa inaad hal il xirtid oo mar soo qaadatid commentigaas aad iga qosliyay sababtoo waa sax laakiin arinta ula jeedo waxay tahay marka qaar waxaad sameyn kartaa xataa in aad hal il xirtid haddii wax accident ay tahay laakiin caadi ahaan waxaa samey marka xaaladan la marayo kale qofka waxaa laga yaabaa saacado kale inay haysato asigoo safar ku jiro marka taa ula jeedo midaas waaye laakiin wuxuu kasoo qaatay qaybta accidentiga adoo galaysid iska xir macnaha ulama jeedin macnaha accidentiga kugu soo socdo ma dareemi karta sababtoo accident waa wax si kedis kugu dhacayo ma fahmi karta xilliga kugu dhacayo laakiin wixii markaas keenaya haddii ay jirto markaas inaad ka hortagtid muuqaalka gabdha eyelasheskana aad u jeceshiin waa la socdaa laakiin sida saxda loo isticmaalo gaadan ku dadaal nadaafadeeda waxaa dhici karta in bacteria u gudbiso baarash indhaha sawirkan aad ujeediin waxyaabaha saacadka indhahaga caadi kuma arki kartid waxaa lagu arki karaa keliya qalab kadib waxay keeni kartaa inay baara indhaha ay kaa gorto meeshaan fiiriya tima indhaha xaaladdan waxaa loo yaqaanaa madrosis weliba infectionka usii gudba maqaarka hoose isha ama guud ahaan inay isha u keento infection qaabka waxyaabahaas oo dhan u hortagi kartaa ayaa si maalinlaha inaad u nadiifid sidoo kale qof aqoonteeda leh inaad la kaashatid muuqaalkan laftirkeeda waxyaabaha cajiibka leh waxay tahay commentidan ka akhriyay ota waxyaabaha dadka commentiga soo dhiibtay dhammaantooda ma la dhihi karo laakiin inta u badan waxay ahayd dad dumar ah maadaama ay commentiga kasoo dhiibtay waxyaabaha cajiibka leh waxay tahay kulligooda ama wax percentage jar in marka laga reebo waxay leeyihiin ma isticmaalno eyelasheska arino sababta ma garan karo muuqaal kale oo makeupkan ka sameeyay way jirtay laakiin arintaas aad cajiib igu noqotay laakiin ulama jeedin inaan mataqaana la isticmaalin dadka qaar waxay dhahaan xaraam waaye inuu sheekh meeyahay laakiin waxa uu jeedo xitaa si wax walba waxay leeyihiin qaab wanaagsan iyo qaab qaldan oo loo isticmaalo inkastoo aan arkay Soomaalida badanaa in hal dhinac mar walba u jiidaan oo extreme meesha ugu dambeysay ay gaarsiiyaan laakiin hab wanaagsan u isticmaashid wax dhibaato leh ma kaaga imaanayo xaaladan baaraha indhaha banaanka u soo laabmayaan waxaa la yiraahdaa ectropion qof kale xaaladan wuxuu u nugul yahay dry ama indha qaleel aad ay indhaha u huraan una ilmeeyaan xaaladan waxaa la yiraahdaa ectropion oo baarka hoose ama baarka korba inay banaanka u soo baxaan indha qaleelka sababta u keenaysan waxay tahay maadaama badanaa baarasha markay banaanka u soo baxaan oo kale dabeesha ay geli karto ilinta laftirkeeda qaab saxan mataqaana isha ugu dul soconayn taasaa keenaysa marka inay xaalad dara ay sameyso xaalad kale waxaa jirta ayadana bilcagsi ku ah entropion ah baarkina inay gudaha u gasho ama inay gudaha u laamato oo timihii markaa hoos inay isha ka xoqaan waa xaalad kale ayadana arintan ka agdhow oo indhaha ku dhaco baaraha wili baarash indhaha qabsata inta badan
qiyaas maxaa keena qofka in ishii sidaan hal mar u gaduudato dhiig xinjira ee fadhiisata meesha cadaanka kaliya qofkan xoog u hintisa kadib wuxuu arkay in meesha wada dhiig ay tahay xaaladan waxaa leedahay subconjunctival hemorrhage meesha cadgadaasheeda ee sclera hoostiisa waxaa ku yaala xididaas yar ayaa qarxayo waxyaabo badan ayaa keeni kara sida qofka jug inay soo gaarto kale sidoo kale qofka markuu matagayo dadka qaba sokorta way keeni kartaa laakiin muhiimadda ayaa ah 2 ilaa waxyaabaha keeni kara waxaa kamid ah xaaladan wax pressure waxay la xiriiro inkastoo dadka qaar si kale u fahmeen oo ah marka qaar markii shower la qaadanayo qof commentiga soo qoran arkay indhaha casaanka noqonaya mise gaduudka taasoo lama jeedo way kala duwan yihiin dabcan gaduudkaasi gaduudkan waa sida dhiigga caadi ah u arkaysa kaas laakiin midaan oo gaduudka khafiifka reaction waaye wax dhibaatana ma laha iskeedna isaga baaba'ay adiga xaaladda ma ku qabsatay maxaadna samaysay markii ay leeyihiin oo kale xaaladda ma ku qabsatay dad badan oo comment soo qoran arkay waliba si fiican u manage garay maasha Allah haddii aad qabtid cudurka macaanka mise sokorta mid kamid ah xubnaha oo saameynaya kamid ah isha taasoo keeni karta xaalad la diabetic retinopathy ama ish inay ku furto dhiig xaaladan qofka qaba aragiisa markuu fiican yahay sidaan ah markii xaaladan ay soo weerarto aragiisa sidoo noqon kara ayaa sidaan ah qaabka ugu haboon oo qofka qaba sokorta mise macaanka aragiisa uu ku badbaadi karo ayaa sanadkii inuu mar isbaaro xaaladan diabetic retinopathy arinta badanaa xoogaa dadka cabsiisa ah dadka sokorta qabo kale macnaheedu inay qabaan xaaladan ma ahan 100% laakiin way u nugul yihiin inta badan dadka lagu arkana waa dadkaas marka qofka haddii sokor qabo waxaa loo baahan markaan inuu ku dadaalo in indhihiisa check up ku sameeyo muhiimadda muuqaalkana sidaas ahayd caadiga la rabo habeenkii aad aragto leerka baabuurka waa sidaan laakiin haddii sidaan noqonayso iftiin ka soo bixisa reflection ah waxay noqon kartaa xaalad la yiraahdo astigmatism waxaa lagu sixi karaa muraayado sidoo kale contact lens LASIK surgery waa lagu sameyn karaa laakiin iftiin ka soo baxay baabuurka haddii hoos usoo janjeero xoogaa waxay noqon kartaa xaalad la yiraahdo keratoconus xaaladan oo keento qaybta madow ee isha la yiraahdo cornea sida koofidoo kale inay banaanka usoo yara baxdo waxaa inta badan bukaanada qaba xaaladan caawin karta waxa la yiraahdo scleral contact lens oo ah baliil sidoo kale waxaa caawin karta qaliil la yiraahdo cross linking marka aragga habeenkii oo kale inkastoo cudurro badan ay keeni karaan laakiin qofka astigmatism ama garaadaha haduu leeyahay iyo sidoo kale keratoconus am sorry aadaan wuxuu mahay asxaabta mawduuca keratoconus asxaab badan ay soo codsatay laakiin insha Allah muuqaalo socota insha Allah ku dari doonaa labadaba inta badan waxay arag dhibka ku qabaan waxay tahay wax way arkaan laakiin si fasiix ah ma arko xoogaa culeys jiro oo marka qaar xataa dadka ay u sharaxaan ku adkaanayso asxaabta muuqaalkan hadda aragtin fake waaye waa editing aan lagu sameeyay wax saddex indhaha ma jiraan waxa waaye reaction kaga sameeyay duet waxa la jiro waxa waa saddex il barnaamijkan ina hore u aragtay in kala ma qaadii ay hore u aragtay iyo in kala qaybta commentiga igu wadaag xilli aad caan u aheeda jirtay oo ma taqaana la soo dhigay Facebook oo kale xitaa wararka lagu soo qaatay marka qaar xataa wararka waxyaabaha lagu soo qaatay xitaa lama ictimaadi karo laakiin barnaamijkan oo photoshop ma kara wax editing lagu sameeyay muuqaalkan hadda okiyaalo xitaa okiyaalkana iska bixisid fartaada sidaan leh sida video kale fartaan kale sidaan leh kadib saddexdan far sidaan leh kabacdi waxaa sameysaa ishaada meeshaan ku aadi ee boolka yar ee ka soo baxayo ideeda kale ishaan kale lahaa xirnaato waxaa la yiraahdaa pinhole farta yar way ku weynaaneen tija arrintan waxaa weeye marka xilligan cabirka aan sameeyno kale cabirka aragga oo kale waxaa jirto waxa la yiraahdaa pinhole oo dhibic yar oo qofku uu fiirinayo chartiga meesha cabirka inta u jeeda iidiya fiir leeyahay soo meesha series ka dhex fiirinayo taas marka waxay u sahlaysaa waxyaabaha aragga u keenayo culeyska inuu ka jaro marka fasiixo ugu dhigaya taasna waa uun qaab yaraan marka u sameeyay isha gacanta ama marka tusaale ahaan ugu soo qaaday laakiin haddii xataa dulaal yar aad warqad ka duulisid ama wax yariisa aad ka dhex fiirisid waxyaabahaas waxay kaa saacidana si fasiix u aragtid xitaa ina aragtee maaqaan dadka qaar markii ay wax fiirinayaan oo kale indhaha isku dhaweeyaan marka indhahaas ay isku dhaweynayaan laftirkeeda waxay ka raadinayaan dulaalkaas yariiska vitamin C indhaha shaqadu ka qabto
midda koowaad wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa caadka indhaha fuulo inuu ka hortago. Baaritaano qaar waxay leeyihiin 30 milligram ayaa maalinta laga baahan yahay inaad qaadatid. Sidoo kale cudurka macular degeneration ee dhaxal ahaan lagu kala dhaxlo inuu khatarteeda yahay door muhiim ayuu ka ciyaarayaa. haddii hore kugu sawirneed in liinta bes laga helo, qudaartan dhan waa laga helaa sababtaan u dhahay in liinta bes laga helo waxay tahay Soomaali waa isla ognahay markii vitamin C la soo qaado badanaa dadka maskaxda wax ku soo dhacay liinta waa, laakiin qudaarta dhan waa laga wada helaa. inkastoo kuwana aad looga badbadiyey oo mataqaanaa heerkay taagnaa laga badbadiyey sida karootada oo kale. karootada aad looga badbadiyey, qudaarta kale la mid yahay oo vitamin A laga helo, vitamin C na qudaarta kale waa laga helaa. mooska baalkeeda kore oo soo buurato ama nabar ka soo baxo ama midkeeda hoose guud ahaan laba nooc ayaa loo qaybiyaa. labadaas nooc oo kale ah chalazion iyo style. midna markuu kaa soo baxo xanuun ayaa dareemaysaa oo aad ah, midna xanuun ma lahan. marka qaarna waxaa suurtoobaysa inaadan ba arkin laakiin baarka hoostiisa uu kasoo baxo, midaas oo keeni karta inaad dareento in isha wax kaaga dhex jira ama in indhaha ku huraan ama ilmeeyaan. guud ahaan waxa ugu horeeya aad sameynayso waxay tahay marnaba inaadan gacantaada la aadin, sababtoo marka qaar markaa gacantaada la aadin infectionka ayaa kugu sii badan karo. waxa inta badan keena waxay tahay saliida ee ku dhex jirta. dabcan abuurtootooga muuqaal YouTube aan ka sameeyey oo haddii faahfaahin arabtid oo kale ee qofka uu ka heli karo. marka mar walba muuqaalo YouTube aan soo sameeyay inta badan muuqaalada waxyaabaha ugu dhalisan aan sameeyo waxay tahay TikTok oo kale markaan muuqaal soo qaato oo la fahmi waa ama sharxadeeda adkaato inaan YouTube soo wareejiyo si mataqaanaa faahfaahsan aan ugu dhigo. haddii meesha madow ee isha ee loo yaqaan iris cadaan hareeraha ka soo galayo, xaaladaas waxaa loo yaqaan arcosinile. inta badan xaaladan waxaa lagu arkaa 50 sano wax ka weyn, inkastoo caruurta laftirkooda lagu arki karo xaaladan. laakiin arinta farxadda leh waxay tahay aragaaga ma saameynayso, wax dhibaatana ma lahan, ha ka walwalin, sidoo kale daaweyn xataa uma baahan. xaaladan arcosinile yiraahdo ina aragtay in kale waa laga yaabaa. dadka dhalinyarta kale haddii cadaan oo kale ay ku yeeshaan madow oo kale badanaa waxaa u keento xasaasiyadda u keento. laakiin qofka markuu 40 iyo 50 markuu jira isagoon xasaasiyad qabin xitaa meeshaas waa iska yara cadaanaya. marka inta badan haddii qofku waxaa isku arko cillad weyn ama caadka indhaha loolama jeedo, hadday kusoo fidayso kale qaybta madow kale laga yaabo inuu qofka xasaasiyad qabo ama xaalad kale. laakiin haddii xaaladaas un wareegun bas uu qabo, markaas waxaa loo jeeda cholesterol noo cabiro. haddii caafimaadkiisa uu fiican yahayna waxbay u kala welin, wax dhibaato ma lahan. asxaabta TikTok habkan sameeya si indhahaaga nasiimo u helaan markaa xoogaa aad TikTok aad isticmaasho kadib. waxaa weeyaan muuqaalkan waxaa ula jeeda waxay tahay blinking, maadaama TikTok uu yahay application inta badan attention inaad ku sameysid. ilbiriqsigaas waxay ka saacideysaa dry eye-ga ama inuu waxyaabo badan ay ka hortagto. marka qaab challenge ah ismay very funny. dadka qaar waxay qabaan madax xanuun joogto ah oo indhaha gadaasheeda la xanuunayso. madax xanuunkaas joogto ah oo la socota indha xanuun laba sabab ayay yeelan kartaa. sababta koowaad ayaa noqon karta indha xanuun inuu jiro, indha xanuunkaas uu sababay in madax uu kula xanuuno. sababta labaad ayaa noqon karta in madax xanuun jiro oo madax xanuunkaas ay sababtay inay isha ay kula xanuunto. badanaa indha xanuunka keenta madax xanuunka calaamadahu leeyahay waxay tahay inay ilinkaa imaato, indha hur. xaalado aad u fara badan ayaa jira oo indhaha ku dhaco, taas oo keeni karta inuu mar walba madax kula xanuuno. sida qof inay garaado u qarsan tahay, garaadadaas oo u keeni karta madax xanuun. sidoo kale indha qaleelka way sababi kartaa, ama jug mar hore qofka indhaha kasoo gaartay. haddii xaaladaas la xaliyana madax xanuunka u kaa. madax xanuunka waa sax waa, inkastoo noocyo badan oo madax xanuun jiro. nooca madax xanuunka ee tahayna badanaa in dhakhtar guud ama caafimaadka guud uu hubiyo heerka tahay ama nooca ay tahay in la hubiyo. indha xanuunka marka waxaa jiro kuwa indhaha ka imaato oo haddii qofka garaado uu leeyahay kale aan la sixin, ama madax xanuunba sida dhaxal ahaan ku imaadee tahay. marka muuqaalka fahamkiisu guud sidaas uu ahaa. make-upku wuxuu noqon karaa saaxiibkaaga ugu wanaagsan, laakiin qodobadan soo socda haddaadan il gooni u lahaan wuxuu noqon karaa cadowgaaga koowaad. midda koowaad waxay tahay inaad boorsada make-upka muddo badan uusan ku jirin, si dadka qaar ay hal sano ay ku isticmaalayaan ayagoon bedelin. waxay keeni kartaa inuu bacteria soo raaca kadibna indhaha u gudbiso oo infection ay ka dhalato. midda labaadna waxay tahay inaad aad ugu taxadirtay xilliga aad isticmaalaysid oo baararka indhaha iyo indhahagaba iska gelin. midda ugu dambeysa uguna muhiimsan waxay tahay marnaba inaad adigoo gaari ku dhex jiro, gaariga uu socdo inaad make-up indhaha ku dhex samaysan. taas waxay dhalan kartaa gaarigaaga oo shil yar oo aad u fudud oo galo inay indhaha ay kaa gasho ugu jirtaba haddii aad bajaaj saaran tahay. markaas shil xad
fari waa muuqaalkan kombiyuutarada cajiib waa kombiyuutarada marka qaar waxaa weeyaan energy ay ku siinayaan waxaa weeyaan makeupka sida muuqaalkii hore makeupka hadlayo oo kale inta badan dadka waxay dhahaan aniga ma sameyn gabdho u badnaayeen laakiin meesha u dambeysa gabadhaas bajaajka saaran waxaan ka helay xilliga aan editing ku sameynaya tiktok waxaan ka helay google ku iska saara marka qofaa marka magaciisa soo qaaday qofka xagee ka hesha marka cajiib asxaabta saddexda muuqaal kale oo ugu dambeeya hadartaan aan kusoo gebgabeyn doonana waa muuqaaladeeda kamid tiktok oo asxaabta tiktok isticmaasho laftirkeeda ee reaction ay ka sameeyeen marka muuqaalkaas isla fiiri doonaa dhahayo kuu kala furan mahnaansan kartaa run ahaantii ma umalaynaysaa in la sameyn karo kaada asxaabta qaar aa isku dayaysaa umalaynaa ayagoo weliba indhahooda sidaan u furan may marnaba ma awoodid haddaa awoodid waa ay tusi kartaa indhahayo kuu kala furan mahnaansan kartaa run ahaantii ma umalaynaysaa in la sameyn karo kaada asxaabta qaar aa isku dayaysaa umalaynaa waa kasoo baxda saaxiib waa kasoo baxda kuu kala furan mahnaansan kartaa run ahaantii ma umalaynaysaa in la sameyn karo kaada asxaabta qaar aa isku dayaysaa umalaynaa ayagoo weliba indhahooda sidaan u furan may marnaba ma awoodid haddaa awoodid waa ay tusi kartaa indhahayo kuu kala furan mahnaansan kartaa umalaynaysaa in la sameyn karo kaada asxaabta qaar aa isku dayaysaa umalaynaa ayagoo weliba indhahooda sidaan u furan markaa muuqaalkaas sameynaya qeybtaas aniga waa iska dhahay laakiin attention ulama jeedin laakiin dadka aada bay mataqaana ay usoo jiidatay oo reaction ay kaga muujiyaan haddii aa muuqaalkeena ka hesha like saar sidoo kale haddii tiktok iyo youtube ay igala socotid qeybta commenti igula wadaa si aa ogaado waxaan idin rajaa caafimaad iyo indhafiyo